nabad daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Tuareg ee gobolka Sool ayaan warkooda ilaa saacadii ugu dambeeyay raadinay waxa khadka telefoonka hadda si toos ah ugu jira hogaamiyaha jamhadda dib u xoreynta Khaatimo Faysal Falaalug Faysal xalay dagaal baa ka dhacay aaga gobolka Sool Tuareg horta bal waxaad nooga warantaa dadka dhageysanaya warantaa meesha uu ka dhacay dagaalku iyo qaabka uu dhacay isa dagaalka u qaadeen bismillah علي دكتور يودمان شغالة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشدة خير خاطمة الحاجة واكرة دجال كاسي الحاجة ولا دعي سعدي دمبي وهكذا دعي ديان كاتفرق دارهان تيجا ماشي لما مدحل اللي يلادو ودراويستو الحاله weerar ku qaaday si caadada wahayd anigu ku dagaalam jireen marka dagaalkaasi waa jira weey dagaalkan maxaa dhinacina khasaaro idin soo gala gaaray dhinaca adigu ciidankaaga hogaaminayay Soomaaliland inkastoo Soomaaliland ilaa hadda wax waray ka soo bixin inkastoo marka laga reebo warbaahinta oo aad arrinta dagaalka maanta u qoraysa maxaa dhinacina khasaaro idin soo gaaray Faysal أنا وأنا وحنا شو قاعدين ده هاي هو هنا يو حقوبي لأنه ما هاي نمكن بعد اللي بيكون صعدان أنا وحنا شو قاعدين هذا يراتين بس أنا ما قايسه أنا وحنا له بين شو قاعدين حبس ما قارنه وحيا له ضد كيجا مركا أنا وحنا شو قاعدين بس Faysal dagaalkan maxaa soo celinaya dhowrkii jeerba waad qaadaan waxaan ognahay dagaalkiina hadda wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Soomaaliland iyo Puntland maxaabiis ay kala wareejiyeen oo labada maamul maxaabiis ay kala wareejiyeen inkastoo aan ilaa imika lagu rasmi loo hayn meel ay ku heshiiyeen laakiin maxaa idinku dagaalkan maadaama labadii maamul maxaabiis ay kala wadaarsadeen idina deegaanka aad ku sugan tihiin dagaalka idinku maxaa u sii wadaan Faysal wali أغير وأنا أقول لبضع معمولة شيء سيدنا منهن جمهد الدب حرين تخاتمان ليالا هل جنتي ضد كان صولي سناجي عين أي عدو بن سومالي بيت كل الدجالميين ولو طبعا كسوس علي بي هل جن كان جمهد السوكي ده وحاجيال كان سعر علينا يا ضد كان دجالميا horta waa dadkii u dhashay Soomaaliya sanaaga cayn waa dadkii 12 sanad la soo dagaalamayay nimankan Soomaalidiidka waa dadka dalkooda lagu soo duulay waa dadka midnimada Soomaaliya doonaya marka waxa weeyaan waxa soo celinaya inta ay cadawgaasi ku jiraan Soomaalidiidka ay dalkooda joogsanaayo dagaalkaasi waanu wadayna annaga kuwii deegaanka leh waayahay mowqifkiina siyaa u aragtaan in Puntland iyo Soomaaliland oo maxaabiista ay kala wareejiyeen idinka muxuu dal muuqdaa Faysal war waxaas wax noo yaala maaha kuwaasi Puntland wadankan iyada markii hore laga qabsaday Soomaaliland tan aad sheegayso SNM jamhadda SNM qarankii Soomaaliya dinisay oo Ingiriis u shaqaynaysaa أنا هيدي غير بلدان تريا ضلك كما يقبسني بالبهانت ما ممكن بلدان بوحكفة بلدان يلا تمهدى محايا هيدي كورة في ماشا حد يرويحي بيوضع محايا هيدي سيهم بيهشيشيين عاكرة ويموغانا سابتكوا وياركان داوي كواكا hadalkaaga waxa ka dareemaya in maamulka Puntland iyo Soomaaliland ay heshiis soo jiraan waxa soo baxayay dhawaanahan inkastoo aan la hubin in madaxweynaha Puntland Said Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ay dib isku arkeen inkastoo warkaan sir loo hayn heshiisyo hoose miyay idin muuqdaan oo Faysal oo idinku xogtooda haysan ka jimadahan war waa noo muuqdaan faacay tameef lagama dhawro maxay ahayday dagaalkii baa la baajiyay ummaddu ay u soo gurmatay inay dadkan dhulbahanta la yiraahdo ku caawiyaan oo nimanka Soomaalidiidka ay ka caawiyaan oo soo batayaan ka shacabka reer Puntland maxay ahayd mustamaciin dadkan arrintii ay garab ku siinayeen maamulkan isaga sidaas weeyay dagaalkii baajiyay
hadda waa aragtaan maamulkan inay maxaabiistii la kala wareegeen oo meeshii heshiis iyo soodil cusub oo khadcaga ay wadaan way muuqataa marka arrintaas caddaade marka mar haddii Somaliland iyo Puntland maxaabiisay kala wareegeen idina laba ciidan dhexdooda aad ku jirtaan muxuu noqonayaa mustaqbalkiina Faysal mustaqbalkeegu wuxuu noqonayaa inaanu guulaysano dadka aanu leedahay wax heshiisa oo ka dhici kara oo anagu aanan goyna ma jiro aan goynayno ilaa iyo inay ku noqdaan biyo Faysal Falaali ayuu ahaa hogaamiyaha jamhadda dib u xoreynta Khaatimo oo goor dhaweyd taleefanka guurguura aan ku helay kadib dagaal xalay ka dhacay aaga gobolka Sool oo warbaahintu maanta si weyn u hadlaysay aad baad u mahadsantahay Faysal waraysigan siisay Sam News TV waa kugu soo laaban doonaa Sam News TV shaqaalihiisa cali dhakab salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh